arday wax ka barata dugsiyada sare ee magaalada Beledweyne ayaa maanta u fariistay imtixaanaadka midaysan ee dugsiyada sare. Markan waxa inoo eegayaa waryaheena Aadan Cali Axmed. Wasaaradda Waxbarashada Dowlad Goboleedka Hirshabelle ayaa maanta magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa ay si rasmi ah uga daahfurtay imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee fasalka 12aad. imtixaankaas oo ay qaadayso Wasaaradda Waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya. daahfurka imtixaankan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee Wasaaradda Waxbarashada Hirshabelle iyo mas'uuliyiin ka socotay maamulka gobolka Hiiraan. deegaanada Hirshabelle ayaa sanadkan waxa imtixaanka u fariistay in ka badan 1600 oo arday kuwaasi oo ku kala sugan gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. agaasimaha guud ee Wasaaradda Waxbarashada Dowlad Goboleedka Hirshabelle Amiin Mukhtaar Axmed ayaa ugu horreyn sharaxay ardayda sanadkan u fariisanaysa imtixaanka dugsiyada sare fasalka 12aad deegaanada Hirshabelle. waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan ardayda Soomaaliyeed koonfurta iyo bartamaha oo saaka u bilaabanayo imtixaankii shahaadiga ee form 4 ka ah. waxaan leeyahay hambalyo runtii waxay soo muujiyeen dadaal fara badan oo ay juhdi dheer soo baxsheen 12 sano oo maanta ay muuqato natiijadeedii maadaama imtixaankii maanta uu noo bilowday. tiradoodu waxay gaarayaan guud ahaan Soomaaliya 250,000 oo arday. Hirshabelle markaan u imaano sida hadda kusimaha guddoonka gobolka uu sheegay totalka guud waxay noqonaysaa markii lagu daro gobolka Hiiraan 1698 oo isugu jirta dhammaan degmooyinka kala duwan ee gobolka Hirshabelle. gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan oo goobjoog ka ahaa daahfurka imtixaankaasi ayaa waxa uu dhankiisa ka hadlay ardada maanta imtixaanka ugu fariistay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. waxaan si cad u qeexaynaa oo cadeynaynaa imtixaankii in aan gacanteena ku furnay oo ku qaybinay na uu furan yahay. haddana waxaan joognaa magaalada Beledweyne iskuulka Majmacu Diiba ama iskuul Xalane ayaan haddana joognaa ka daafurnay macnaha imtixaanka bilowgiisii. Allah u fududeeyo ardayda Soomaaliyeed. haddii aan wax yar dhinaca kale u leexdo waxaan rabaa wasaaradda waxbarashada federaalka waxaan uga mahad celinaynaa tilmaan qaladkii yaraa oo dhacay sida ay noogala qayb qaateen ay u dadaaleen waa uga mahad celinaynaa.